qaar ka mid ah askartii Uganda ee ka badbaaday weerarkii Buulamareer ayaa sheegay in shabaabkii dhawaan soo weeraray saldhigooda ay ku qaldeen inay ahaayeen beeraley. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Uganda ayaa sheegay in weerarka ka hor ay beeraleydu xilliyada habeenkii ah meel ku dhow saldhigga ciidamada Uganda ee Buulamareer ay ka wadeen waraabinta dalagyada beerahooda. waxa uu yiri beeraleydu waxa ay waraabinayeen dalagyadooda iyagoo isticmaalayo cagaf-cagafyo iyo sidoo kale dameero habeenkii oo dhan ah. Arintan ayaana keentay in ciidamadeenu ay dib u dhigaan falcelintooda iyagoo u maleynayay iftiinka beeraha ka soo baxaya inay ahaayeen shaqada beeraleyda ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray ku-xigeenka afayeenka ciidamada militariga Uganda. sarkaalka ciidamada Uganda ayaa sheegay in qaladka ugu weyn ay ciidamadoodu sameeyeen uu ahaa sababta ay isugu diyaarin waayeen dagaalka Al-Shabaab markii ay heleen xogta weerarka kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadi rabtay saldhigooda. Sareeya guuto Felix Kulugi ayaa markii hore sheegay in ay hayeen xog sir ah oo ku saabsan weerarada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen saldhigooda. askartii ka badbaaday weerarka ayaa iyaguna sheegay in sirta weerarka Al-Shabaab la heli karay balse ay ku jahwareereen dhaqdhaqaaqa beeraleyda ay ka wadeen nawaaxiga saldhigooda. Uganda ayaa lumisay taliyahoodii ugu sareeyay xerada Buulamareer kaasi oo lagu magacaabi jiray Colonel Edward kaasoo Al-Shabaab sidoo kale ay sheegeen in ay toogteen halka warar kale ay sheegayaan inuu isagu isdilay kadib markii ay hareereeyeen ciidamada kooxda Al-Shabaab. markii horeysay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in ugu yaraan 54 meydadka saraakiil ka tirsanaa ciidamada Uganda laga soo saaray xerada military oo ay weerareen kooxda Al-Shabaab. weerarkan oo dhacay 26kii May ayaa waxa uu dood ka dhaliyay gudaha dalka Uganda. waxaa si adag uga hadlay ninka mucaaradka ah ee u babacdhigay Museveni wuxuu sheegay in ciidamada UPDF ee Uganda ay muddo badan joogeen Soomaaliya ayna tahay in laga soo saaro si looga hortago in ciidamada lagu laayo goobaha dagaalka ee gudaha Soomaaliya. sanad ka hor waxay Al-Shabaab xilli aroor hore weerartay saldhigga ciidamada Burundi ay ku leeyihiin degmada Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxa ay sheegteen in ay cagta mariyeen saldhiggaasi isla markaana ay dileen tiro askar ah oo kor u dhaafaysa 100 askari. howlgalka midowga Afrika waa uu beeniyay sheegashada kooxda. hore waxay sidoo kale Al-Shabaab u weerareen saldhigga Ceel Cadde iyo saldhigyo kale oo dhowr ah kuwaas oo fariisin u ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ka socda Uganda, Burundi, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasus leh daweynta xanuunkaaga. waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital.